labadii gobol ee waqooyi iyo koonfurta Soomaaliya 60 sano ayaa laga joogaa sidoo kale walaalaheyn Djibouti oo fishanka calanka Soomaaliya tilmaamayo shanta gees la kamid ahayd waxay iyaduna xornimada qaadatay 27 Juun oo isla todobaadka xorriyadda ku jirta marka maadaama saddexdaas qaybood ee Soomaaliya ah saddexduba ay qaateen xornimada todobaadkan hadda ina ku soo beegan caawa bilaabanaya waxa loo bixiyay todobaadka xorriyadda sidaas awgeed anigoo u mahad celinaya warbaahinta Soomaaliyeed ka soo qaybgalkooda shirkan jaraa'id ee xoog leh waxaan runtii rabaa inaan halkan shacabka Soomaaliyeed anigoo ah gudoomiyaha guddiga qabaqaabada xusaska 26 Juun iyo 1 Juulaay halkan rabaa inaan u mariyo shacabka Soomaaliyeed meel kastuu joogo hambalyada munaasabadahaas oo maalmaha soo socda madaxda qaranka oo madaxweynuhu ugu horeeyana uu ka hadli doono dabaaldegyo la samayn doono inkasta oo aynu ku jirno waqti adduunka iyo Soomaaliya ay ku jiraan xaaladan wali la qaadin khatarta xanuunkii coronavirus-ka dabaaldegyo waaweyn iyo wax qabad muuqda ayay dawladda nabad iyo nolol diyaarisay 3 sano iyo barkii ay xukunka haysay iyo sidoo kale dawladii ka horeeyo mid waliba iyaduna soo sameeynayso horumar soo sameeynayay laakiin sanadka 2020 waxaan u aqoonsanay sanadkii dalka iyo dadka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed si buuxda uga soo kabteen intii suuragal ah burburkiina ku dhacay 30 sano ka hor marka le si buuxda uga soo kabteen wali waxbaa jira amaan daraa jirta dib u heshiisiin loo baahan yahay jirta arrinta Somaliland oo wali taagan baa jirta laakiin wax fiican ka socdaan dhaqaale xumaa jirta shaqo la'aan baa jirta laakiin adduunka oo dhan dawladaha ma jiro ilaahay un baa wax walba kaamila adduunka oo dhan wax walba ma kaamilo dawladaha midiba in uun bay ka gaadhaa adeega bulshada ama adeega looga baahan yahay in bay ka gaadhaa in kamida oo macquul ah baanu ka taaganaa waad ogtihiin siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya maanta inay dhammaan joogitaankeedii ama awoodeedii caalamiga ahayd ay soo ceshatay waad ogtihiin dhaqaalaha iyo hawsha dawladda hadda jirta ay ka qabatay oo runtii haddaan coronavirus imaan lahayn hadda ay shaqooyin badan iyo mashaariic badan dalka ay ka socon lahayn hadda laftigeedana rajo laga qabo inay dib u bilowdaan waad ogtihiin adeega bulshada in dawladdu cusbitaallo si lacag la'aan dadka qaarkiis ay ugu yimaadaan ay iyo iskuullo lacag la'aan lagu dhigto in la bilaabay oo meel fiican ay marayso adeeg badan uu jiro dib u dhis dalka uu jiro oo xoog leh marka qaybihii waad ogtihiin amniga in ciidamadeenu ay hadda awood u leeyihiin inay amniga dalka sugaan sida Muqdisho ka arkaysaa almost dadkii nabadiidka ahaa ee laamiyada maragtay dadka Soomaaliyeed ku qarxin jiray wali dib way geysanayaan laakiin 90% ka badan waa la dhimay gobolladana ciidankeena ma wajihi karaan alqaacidadu way baaba'ayaan telefoon baa u haray inay meelaha ka soo dirdiraan marka amnigana waxa laga gaaray horumar weyn oo hadda kadibna aan rajaynayno in ciidamada qalabka sida awood u yeelan doonaan inay geed kasta iyo tuulo kasta dalka Soomaaliya kamida gacanta ku dhigaan marka horumar weyn ayaa socda shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ama ugu baaqayaa inay weyneeyaan munaasabadahan oo ah wax u dhaxeeya oo ay wada leeyihiin sharafkoodii karaamadoodii jiritaankoodii weeye maalmahan dad Soomaaliyeed oo ina ka horeeya awooyaasheena iyo kuwa wali nool ayaa u soo halgamay oo u dhintay marka adduunka oo dhan markii dadku waxay leeyihiin munaasabado iyo marxalado ka dhaxeeya oo aanay ku kala duwanayn oo sharafkooda ayay leeyihiin dadka adduunka markii munaasabadan oo kale ay joogaan qof waliba bil ka hor buu community-gu isu yimaadaa xaafadooda hagaajistaa laamiga xaaqa guri kasta calan suraa dabaaldeg personaala oo aan dawladi ku abaabulin ayay sameeyaan dadka Soomaaliyeed saasaa laga rabaa waxaad arkaysaa guri 5 dabaq meel dhisanayo meel calanka uu suro aan lahayn guri kasta in calanka la suro wey waa jiritaankaagii wey waxa laga garanayo waxaad u taagan tahay wey marka sidoo kale waxaan ugu baaqayaa madaxda maamul goboleedyada runtii aan amaanayo qaarkood inay guddi kaayaga la mid ah dhiseen sida koonfur galbeed oo kale waxaanu ku amaanaynaa inay iyaguna sidaas oo kale u weyneeyaan
oo waxa Soomaaliya ka dhaxeeya weyneeyaan muranka iyo waxa dawladda Soomaaliyeed ama dawladda dhexe iyo inaan waxa Soomaalidu ku kala qaybsatay kor la keenay waxa ay ku midaysan tahay iyo waxa ka dhaxeeya wanaaga in kor la keeno oo ayaguna munaasabadaha todobaadka xorriyadda magaalooyinka Soomaaliyeed oo dhan caasimadaha maamul goboleedyada oo dhan waan filayo dabcan inay saas aan u sheegayo ay uga socoto inay xuskaas weyneeyaan 16 Juun iyo wiiga oo dhan halkan magaalada madaxda dalka Muqdisho iyo dawladda dhexe waxay qorsheynaysaa in ay todobaadkaas oo dhan ay muujiso dabaaldeg oo waliba dabaaldega sanadka uu ka duwaya dabaaldegyadii hore kuwii hore xafladay ahaayeen kuwani waa mashaariic la furay waa wax qabad la muuqda way oo la taabtay way ayaad arki doontaan maalin kasta wiigaas ama gobolada dalka meel kamid ah mashaariic laga furaya ama magaalada madaxda dalka Muqdisho laga furaya marka dabaaldegaygu maadaama aanan bulshadii badnayd isu wada keeni karin xaaladda caafimaad ee adduunka iyo Soomaaliya ku jiro awgeed waxaan culays ka saaraynaa inaan dadka Soomaaliyeed markii hore qorsho ahaa in aanu tusno wax qabadka dawladda Soomaaliya iyo rajada Soomaaliya maanta jirta ee lagu faani karo waan filayno in qof kasta oo Soomaaliya ka baxo wixii dhibaha haysta haddii shaqo la'aan hayso dhawaan haddii duruuf amni ay hayso mid walba laga kor qaado oo sida bini aadamka adduunku u nool yahay u noolaano oo ay tahay nabad iyo nolol oo magaca hadda dawladda u taagantay qaadatay ay tahay marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin shalayto halkan waxaanu kula shirnay agaasimayaasha warbaahinta gaarka loo leeyahay waxaanu ka codsanay inay nala qaadaan oo nala weyneeyaan oo aanan annaku dirin qaar badanna way istireen oo aragtay telefishinna badan oo halkan jooga ayaa almost week waday hadda inay maragtay xusaan taariikhda Soomaaliya iyo halgankii la soo maray iyo wixiina ka halaabay iyo hadda sida waxay ku hagaagayaan ayay runtii muujiyeen waana ku amaanaynaa inta kalena waxaanu leenahay waxaanu idinka sugaynaa inaad maragtay weyneysaan munaasabadaha qaranka aad iyo aad baa u mahadsantihiin